مربانا بناسيو دبر هاينه مربا سيداسو كلا no 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 war degdeg ah guulad Simba iyo walaalkiis Nabil Buule oo kabaha la dul maray Xaliimo Gobaad ayagoo waliba si aad iyo aad u foolxun u caayay haddaba maxaa ku soo beega dagaalka xilligan maxaa ka dhaxeeya Nabil Buule iyo Xaliimo Gobaad barnaamijkan oo faahfaahsan ayaan maanta idin haynaa balse marka hore fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelkeena Barbaaris Media subscribe saaro calaamada gambeelka ahna furo sidoo kale videoga like saar si aad ula socoto warbixinada xasaasiga ah ee halkan ku soo gudbino mahadsanidin dhaqankeena Soomaaliyeed iyo diinteena suuban ee Islaamka toona kuma fiicna in ninka ragga ah ka sheekeeyo xaaskiisa ama ha kala tagaan ama ha wada joogaan balse guulad Simba walaalkiis la xamiista Nabil Buule waxa uu ku dhiiraday inuu xaaskiisii hore ee Xaliimo Gobaad aflagaadeeyo waliba uu shirkeeda halal u sheego Nabil Buule sida aad video ku arki doontaan waxa uu ka sheekeynayaa xaaskiisii hore ee Xaliimo Gobaad waliba waxa uu si gaar ah uga faalloonayaa dibkeeda iyo horaadkeeda iyadoo oo waliba uu ag fadhiyo walaalkiis guulad Simba oo halkii laga rabay inuu xamaanta ka qabto oo uu ka celiyo gabadha Soomaaliyeed ninkan aflagaadeynayo u riyaaqayo oo ku qoslayo waliba u sacabtumay inta aynan videoga gaarin waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso guulad Simba walaalkii Nabil Buule iyo Xaliimo Gobaad maxaa ka dhaxeeya aniga ayaa kaaga jawaabaya su'aashaas fadlan videoga si fiican u dhuux Xaliimo Gobaad waa xaaskii hore ee Nabil Buule waxa ayna u dhashay ilaa iyo 4 carruur ah isku dhaca labadooda Xaliimo Gobaad iyo Nabil Buule waxa uu soo bilowday sanadii 2018 asagoo aakhirkii 2019 ay ku kala tageen isku dhacan labadan lamaane ayaa waxa sababay masayr ka oo ka dhashay hees ay isla soo qaadeen sanadii 2018 Axmed Saki iyo Xaliimo Gobaad heestaas oo magaceedu ahaa ayaheena nolosha ayaa laga dareemayay jacayl aad u daran oo ay labadoodu muujinayeen Xaliimo Gobaad iyo Axmed Saki isku filan ilwaad qurux ileenadiga mooyee indhahayga meel kale miyay eegi karayaan heestaas markii ay soo baxday sanadii 2018 ka bacdi Nabil Buule waxa uu go'aan ku qaatay inuu fanka ka fadhiisiyo Xaliimo Gobaad oo walba asagu oo heesaha u laxan saari jiray gacan weyn ka sii jiray si ay horumar lahayd fankeeda balse Xaliimo Gobaad way ka biyadiidataa oo waxay go'aan ku gaartay inay fankeeda sii wadato waxa ay u soo ambabaxday dhinaca iyo Soomaaliya waxa ay timid magaalada Muqdisho waxayna hees cusub la soo saartay fanaanka caanka ah ee reer Muqdisho ee Khadar Kiyo heestaas oo ka sii masayr badneed tii Axmed Saki oo ka xanaaqay Nabil Buule isla markii Nabil Buule waxa uu shaaciyay inuu furay Xaliimo Gobaad sidoo kale iyaduna waxay shaacisay inay isqabaan fanaanka Khadar Kiyo oo ay Muqdisho meherkoodu ka dhacay isu guursadeen isla markiiba Xaliimo Gobaad waxay banaanka soo dhigtay khilaafka u dhaxeeya iyada iyo Nabil Buule waxa ayna ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook sida tan filimada xayawaanaadka haddii aad daawato waxaad arkaysaa 30 dawaco oo hal libax ku wareegsan balse ku dhici kari la heestani waa heestii labaad ee heesaha uu dhacay ina Buule asaga codkiisa ku qaadaya sidaad aragtaan waxaan ugu keensaday laxan inuu ii saaro heeska waxa mirihiisa lahaa Xamse Xadaari oo aniga isii waxaan duubay 20 June sanadkii hore snapkana waa taas aan soo dhigay iyadoo coming soon ah October intaas waxay si raacisay Xaliimo Gobaad iyadoo oo ku jeesaysa Nabil Buule laba wajiile adiga oo kala ah aniga waxba fankayga uma dhibi karee dhulka soco in kugu filan ina Buulo ayadoo waliba u sii hanjabtay oo tiri shaqo adag ayaan idinka qaban adiga iyo qashinka aad hoosta ku wadato ee laba wajiilayaasha ah ayadoo markaas ula jeeda Safwan Halac iyo guulad Simba Xaliimo Gobaad warkeedaas markii aan baaritaan ku sameynay waxa uu noqday mid sax ah sababtoo ah heesta ay sheegayso waa hees isla soo qaadeen Ayaana iyo Safwan Halac sida aad cadaynta videogan ku arki doontaan Safwan Halac waxa uu leeyahay coming soon aniga iyo Xaliimo Gobaad haddana videoga ku xigo aan soo doono hadda waxa ay leedahay Xaliimo Gobaad ayaa iyada baawur saaran oo Safwan Halac la joogto waxay leedahay coming soon insha Allah heestan heestina aakhirkeedii waxa isla soo qaaday Safwan Halac iyo Ayaana Nabil Buule ayaana qasab ku siiyay asaga oo markaas Xaliimo Gobaad qasab ugu qaaday heesta bal ila daawada videogan كنت أقول ربكم قاعد
sida aad u jeedaan heestan oo magaceedu ahaay igaar ahaw waxaa marka hore isla soo qaadi rabay oo loo ballansanaa isla soo qaadaan Safwaan Halac iyo Xaliimo Gobaad laakiin Nabil Buule ayaa qasab ku furan maroojiyay oo heesta wuxuu u dhiibay Ayaana waana hees dabcan hadda viewskeeda aad u fiican yahay ilaa iyo 10 milyan oo ku dhow yahay halkaas dagaalkaas oo ku gabagaboobay la ogaay ka bacdi wax macnaha soo rogal celiyay ma jirin Xaliimo Gobaadna halkaas ugu sii gudubtay laakiin Nabil Buule ayaa muuqaal oo soo duubay haween hore oo la fadhiyo guuladsiinba sida muuqaalka ku arki doontiinba waxa uu ku caayay Xaliimo Gobaad oo wuxuu leeyahay marbaad yacni aadan dib iyo horaad balahayn oo macnaha aad ahayd dhaladaas oo kale dhalka kor u qaado videogaas ayaan kaga sii tagaynaa guud ahaanba bahdeena Barbaaris Media waxaan idin leenahay daawasho wanaagsan waad mahadsantihiin marbaanab naasiyo dabalahayno marba sidaasoo kala marbaanab naasiyo dabalahayno marba sidaasoo kala